madaxweynaha Soomaaliya Maxamed Cabdullaahi Farmaajo iyo wafdi uu hogaaminayo ayaa maanta ku wajahan magaalada New York ee dalka Mareykanka halkaas oo uga qayb galayo shirka 17aad ee golaha guud ee qaramada midoobay. madaxweyne Farmaajo ayaa khudbad ka jeedin doona kulankaasi ay isugu imaanayaan hogaamiyaasha caalamka waxaana kulanka 17aad ee qaramada midoobay looga hadli doonaa sida la sheegay arrimo ay ka mid yihiin dib u xoojinta dadaalada lagu dabargooynayo saboolnimada baahinta waxbarasho tayo leh iyo ka hortagga dhibaatooyinka isbeddelka cimilada. waa markii ugu horeysay tan iyo markii la doortay uu shirkani ka qayb galo madaxweyne Farmaajo waxaana labadii sano ee la soo dhaafay shirkaasi uga qayb galaya Soomaaliya ra'iisul wasaare Xasan Cali Kheyre. madaxweynaha ayaa wixii haatan ka horeeyay waxa uu culays ka haystay dhalashadiisii labaad ee uu ka haystay dalka Mareykanka taas uu hadda iska celiyay. ajendayaasha ugu waaweyn ee hogaamiyaasha caalamka ay kaga arinsan doonaan shirka 17aad ee golaha qaramada midoobay ayaa waxa uu ugu muhiimsan xoojinta fursadaha shaqo iyo siyaasadeed ee dhalinyarada, xal u helista colaadaha iyo khilaafaadka caalamiga ah, kobcinta dhaqaalaha, ilaalinta xuquuqda aadanaha iyo mideynta dadaalada lagu wajahayo waxa ay reer galbeedka ugu yeeraan argagixisada.